Love will make you do crazy things. You gotta be able to have people talk crazy. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركلي عشرة تحنا ولبنا كورسكي وحلو يقانو كوس أكونتينكا عشر كيسي لبعض أما وحلو يقانو إن definition كيسي السحرة إنه جوجل نمر كار introduction هم بينصوص مايني حتى وحلو يقانو what is cost accounting. cost accounting كان محوي cost accounting كا ونكسو هذا introduction كوحيابها اللي جب بهاي قف كدوني إنه بلاو تبغون نقول ما إنه وقت يعني قاعد عاية بس توص أيانو بلاوي دونا إن شاء الله تعالى. what's cost accounting هذا cost accounting كو profiles وحكوسينيا the detailed information warbixin dheeraad that management aad ku maamulayso kuwaas oo aad ku maamulayso needs waxyaabaha aad u baahan tahay to control inaad ku maamusho controlka lagu sheegay waxa weeye yani cost accounting kaaga kharashka uu meesha uu gelayo inaad ku controlsho current operation hawlgalada gaarka private hawlgalada operation ka aad ku bilaawayso ambalayn iyo khidada dejinteeda for the future mustaqbal aad u dejinayso. marka si kooban haddaan hadalka idin soo koobo cost accounting waxa weeye warbixin dheeraad ah oo aad ka helayso oo warbixin dheeraad ah aad ku maamulayso waxyaabaha needska aad u baahan tahay si aad control ugu yeesho kharashka aad ku bixinayso current operation hawlgalada iyo inaad balan dejiso for the future mustaqbalka ayuu khuseeyaa. sidoo kale cost accounting insurance wuxuu leeyahay halbeegyo analyze la fagur aan report financial iyo warbixin maaliyadeed in la diyaariyo non financial iyo warbixin maaliyadeed oo aan khuseyn waxa jirta non financial iyo report iyo financial information iyo non financial yani warbixin maaliyadeed mid khuseysa iyo mid aan warbixin maaliyadeed khuseyn relating taasoo la xiriirta to the cost ka la xiriirna waxa jira warbixin maaliyadeed la xiriirta iyo mid non financial aan la xiriirin laakiin labadooda maxay la xiriiraan cost-ka related la xiriirta to the cost of acquiring cost-kii lagu galay or use lagu isticmaalay resource khayraadkii in organization kaagu khayraadkii uu hayay cost-kii lagu galayay wixii la xiriiray ee ahayn financial iyo infinancial labada ahaa weeye ku leeyahay. sidoo kale waxa jirta waxa loo yaqaano inuu leeyahay management maamulka uses loo isticmaalo this information managementiga isticmaala warbixintan to decide si ay u go'aan qaataan how to allocate sida ay ugu ururin lahaayeen resourceska ama khayraadka to the most effectively and profitably yani most efficiently qaabka ugu wacan ama habka ugu wacan resourceska inay ugu ururiyaan and profitably aanay faa'iido uga dhaliyaan areas of the business ganacsi way oo yani ganacsi haddaan haddaba in yaro intaana koobnin idinku soo sameeyo wuxuu leeyahay cost accounting wuxuu leeyahay halbeegyo iyo la faguro iyo warbixin maaliyadeed laga diyaarinayo iyo warbixin aan maaliyadda la xiriirin laakiin labadooduba xiriir waxay leeyihiin cost accounting lagu galayay in loo isticmaalo cost accounting la galayay ee lagu isticmaali lahaa resource organization. sidoo kale wuxuu ku leeyahay wuxuuna maamulka ama managerada ama managementigu waxay isticmaalaan informationka cost accounting ka isticmaalaan si ay ugu go'aan qaataan to decide si ay how to allocate qaabka ay u ururin lahaayeen resource khayraadka to the most efficient yani habkii ugu wacnaa ee profitably laga dhalan lahaa faa'iido areas of the business ganacsiga inta lagu guuda jiro. way haddaba sidoo kale waxa loo yaqaano haddeen hore ugu socono wuxuu ku leeyahay all types of business dhammaan ganacsiyada ee entities shirkadahaas oo ah manufacture ama ah merchandising ama ah service qofku haduu financial 1 ama financial 2 soo dhigtay wana shuruudaha looga baahan cost accounting ka soo sheegnay manufacture inuu galay merchandising service waa qaybaha businesska waxaana lagu soo dhigtaa financial 1 ka wuxuu ku leeyahay qaybahaasi business requires cost waxa weeye waa business ka require shuruudaha looga baahan cost accounting information system to track their activity si loo qofo loo barbaaro activitieski iyo waxqabadadii meesha. manufacturersku wuxuu leeyahay converting purchasing row waxa loo bedelaa manufacturersku converting purchasing row yani alaabtii la soo iibsaday qaydanayd materialska ahayd
into finished good in loo bedelo markii ready for sale la iibsanayay by using iyadoo la isticmaalayo labor shaqaale technology technology waa loo isticmaalaya marka employee maadaan and facilities marka wuxuu ku leeyahay inta ay hadaan ku soo koobo manufacturersku waxay u bedelaan wax soo saarayaashu purchase raw material alaabtii ay soo iibsadeen ama ay qeydinayd finished good bay u bedelaan nuxurka hadalku wax iyagoo labor shaqaale isticmaalaya technology way hadda wuxuu ku leeyahay merchandising kuna marka hore manufacturer-ku in yar wax kaaga soo sheeg wuxuu merchandising kuna purchase wuxuu iibsadaa finished goods buu soo iibsadaa alaab u diyaar ah in la iibiyo marka hore ba soo iibsadaa for resale muxuu ku soo iibsanayaa jumlad hadhow isagina tafaariiq buu iibinayaayo ama jumlada haween ama tafaariiqda baa uga iibiyo isagii uu ka sii ganacsanaya cost buu sii saaranaya way hadaba ku leeyahay for profit service hadaba faa'iidada adeega for service business ganacsiga qaybtiisa service-ka such as sida health clubs يعني شركتها الدواوينك عافمادة إيبيا أما دخاترته وكلية أكونت فيمس شركتها وحسابية وحجرها شركتوينك كله وحسابية أن NHL هي كل تيمس وحلاقي قانو سلوى إيبيان سيرفيس هذا دن برودكتس يعني ألعابتي وحنا إيبيان سيرفيس كي بس أنا لقول شيء فإذا سيرفيس كلا جهلا وحوي وكلية يعني سيرفيس بزنس كي وقود سالي ونحرق هذا وكلية هيرتي كلابس اختاروا وحنا بحيان ما هم مانوفاكتشر ما أهم ماركتيشن وحوي وهيرتي كلابس وحلا يقعنو إن وأذيك بقبانيا سيد أذيك عارف ما إنه اختارك وحنا كوا قبانيا ده ما ها برودكت كوا ما سمعناه وعقول سمعناه أذيك عارف ما أذيك أصلا سادرت السيرفيس بنقانيا أكونت فيه مثل حوي الشركة وحوي حسابية يقول حساب قولوا الشركة دون حساب لا فرق الشركة كلا لقول حسابينيو أكونت عند تسكو سقوط تجي وي iyo waxyaabo la mid ah hadeen hore ugu sii socono sidoo kale waxa jiro waxa loo yaqaano wuxuu ku leeyahay non-profit service agencies such as charities governmental agencies and some health care facilities providers at little or cost to users wuxuu sii tusaale ka sii bixinayaa faa'iidada waxa loo yaqaan not for profit service waxa jira service faa'iido laga rabo service adeeg faa'iido laga rabo aad lacag ka dhalinayso sida maartay dhakhtarada iyo waxyaabo la mid ah iyo sidoo kale iyo ra'iislayaasha iyo waxaas waa service ay faa'iido ka rabaan laakiin waxa jirta not for profit service adeeg aad qabanayso aanad faa'iido ka rabin sida agencies-ka waxa weeye waa UNHCR iyo waxyaabo la UNICEF tayo faa'iido kama rabaan sida caadiga ayagu sayday noo sheegayaan laakiin si taa bedelkeeda waxay bixinayaan caafimaad lacagta ayagu ay bixinayaan aanay faa'iidana ka rabin waxa jirta sidoo kale governmental dawladdu faa'iido ma rabto maalin walba waday ku dhisaysaa maalin faa'iido wax la dhaw ma rabto in sidoo kale some health cares waxa jirta qaar kamida caafimaadka dhakhtarada oo bilaash wax ku bixiya kuwaasna waxa loo yaqaanaa not for profit service sidoo kale prefer a little or no cost to user costna lama isticmaalano waxaasoo kale waxyaabahaasoo kale marka haddii aynu maaragtay hore ugu yar soconno oo aynu tusaalayaal halkaa ku yaala tusaalayaasha halkaa ku yaala wuxuu ku tusinayaa imika saddexdii waxaan ka soo hadlay service manufacturing marketplace tusaalayaashoodii buu imika characteriska imika ina dhaafay ay inugu soo sawiray oo markaa inugu tusay outputkoodii iyo siduu yahay guriskii waxyaabo la mid ah haddii aynu hore ugu dhaafno oo iska dhaafno waxaynu toos u galaynaa hadaba waxa loo yaqaano cost accounting-ka la sheego cost accounting-ka waxaan ka horeysiinaynaa manufacture-ka oo imika isleerkiisii halkaas inoo yaalo manufacture-ka haddaynu warbixin ka yar bixino horta marka hore waxa loo yaqaano in halkii ku noqono ma waana casharka manufacture هذا manufacture كوا لجوه السنين manufacture كم حلو واحد لا يقانو process هذا وحده كله هاي واحد لا يقانو the nature of manufacture process هبك عادي process هبك أمره requires شروطها داتا accounting information system كا لقربه of manufacturers كا شركة واحد صار be designed وحوي be designed to accumulate
waxa weeye marka hore manufacturer waa inay design sameeyaan shirkadaha wax sameeya ee manufacturer wax soo saar kale marka hore waxay sameeyaan waxay soo saarayaan qaabka u ekaan lahaayeen designkiisi to accumulate detailed iyo warbixin buuxda ayay soo saarayaan warbixin buuxda ay inoo keenayaan warbixinta buuxda markay inoo keenaan taasoo detailed faahfaahsan taasoo cost data related maxay la xiriirsantahay cost-kii bay la xiriirsantahay data warbixin cost-kii la xiriirta related to the production process ishay ka soo ridaysa yacni manufacturerkaasi wuxuu soo saaraa marka hore muxuu yahay production process baa jira wax loo yaqaano wadooyin loo maro si wax loo soo saaro waa in marka hore design la sameeyo waa in wixii ficil ahaan loo soo saaro dhowr wax baa jira marka habka casharkan ku dhex fahmi doonaa sharaxaad hadeen hore u sii wadno marka wuxuu ku leeyahay production process qaabkoodii buu imikana kugu soo celinayaa jaantuska bahashan wuxuu ka hadlayaa isagu qaabka wax soo saarka haddii tahay manufacturer wuxuu ku leeyahay dhammaantood waxa halka aad ku aragtaa ee raw material leh ee natural resources leh ee capital leh ee human resources leh maxay marayaan waxay marayaan conversion process habkii manufacturer marayaan hadhow muxuu imanayaa output baa imanaya in shirkadii dabadeed ama warshadii dibadda wax u saarto ama service bay dibadda u saari ama goods bay dibadda u saaraysa weeye hadalka nuxurka hadalkiisu hadeen hore uga socono wuxuu ku leeyahay the manufacture process requires the conversion of raw materials into finished good through the use of labor and other factory resources manufacture process marka la samaynayo oo manufacturersku ay processki marayaan requireska looga baahay ama shuruuduhu waxa weeye the conversion of raw materialki waa in la bedelo into finished good baa loo bedelaya oo ready for sale alaab ibu diyaar through the uses of labor iyadoo la isticmaalayo shaqaale and other factory resources iyo sidoo kale waxyaabihii ay u baahnayd warshadu baa la isticmaalayaa la sameynaya markaas ayuu ku leeyahay sidoo kale wuxuu ku leeyahay waxa loo yaqaano haddii aynu hore ugu soconno casharkeena horta marka hore wax walba waxa ku wacay concept in laga bixiyo marka la dhameeyo intaana haddaan concept yar ka siiyo manufacture process requires the conversion of raw material wuxuu ku leeyahay shuruudaha looga baahan yahay manufacture process shuruuduhuna waxa weeye waa in conversion lagu sameeyo raw materialkii halka la geenayo marka finished good baa la geenayaa maxaa la isticmaalayaa labor shaqaale maxaa kala la isticmaalayaa other factory resources warshadu waxyaabo kale u baahanta warshada waxyaabihii kale u baahnayna waa in la mariyaa wuxuu ku leeyahay hadaba manufacture must make a major investment manufacture ku hadaba halka marka arintu manayso wuxuu u baahan yahay major investment maalgelin qaangaadhay ama maalgelin weyn buu u baahan yahay in physical asset hanti la taaban karo oo weyn oo loo isticmaalo such as property sida hanti dhuleed manufacture waxa loo baahan yahay warshadan aad ku shaqaynaysaa inaad adigu dhulkeeda leedahay dhul baa loo baahan yahay property investment waa loo baahan yahay major investment baa la dhahaa plant baa loo yaqaan plant waa asset sida gaari iyo hanti meeshu leedahay an equipment qalabka warshadu ku shaqaynaysa waxyaabo la mid ah baa loo baahan yahay uu ku leeyahay marka waxa ku jira wuxuu ku leeyahay to produce finished good si aad u soo saarto finished good ama production qaabka ugu dambeeya finished good ready for sale ka soo saarto manufacturer must purchase waxa qasabay inay iibsadaan appropriate quantity alaabta ugu wacan of raw material ee walxaha qeydin marka hore wax qeydin alaabta qeydin loo siisi wala soo qaaday wax laga soo saaray aan supplies sidoo kale dadka wax laga qaadanaya baahiya and develop horumarinta workforce wada jirka shaqaalaha workforce wax loo yaqaan shaqaalaha meel ka wada shaqeynaa loo yaqaan casharkan horta intaasaan ku joojinaynaa waxaan jeedinaynaa fahanteen casharkaas tacantan soo kulmino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh